السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada filimkeena maanta guys. gabadhan ayadoo saaxiibada la sheekaysanayso iyo wiil qorraacaya ayadan way isku naxaysaa laakiin wakiilkeeda ayaa ka jawaabaya. ugu dambeyn wiilku ma biswaalayaba kaarkiis lacagta oo gacanta ka saaraya. gabadha run ahaantii way la yaabaysaa saaxiibadeedna wiilkii ku qaylinaysa. maalmaha kamid ah iyadoo baaskiilkeeda la joogtay oo imaanaya kadib baaskiilkii ka qaadanaya. gadaasheed markay fiirisan waxay arkaysaa gabdho badan kadib asiga iyadoo bursanaysa sida baaskiilkeeda ugu soo noqoto. markay gaari weysan dhinac kale ayaa u soo baxaysa asigana wuu isku naxaya kadib gacanta ayaa dhaawac ka gaaray. ayadan way ku qaylinaysaa waxaan ku dhahaysaa sidee ku wadina baaskiilkii qaadatid. asigana wuu xanaaqaya kadibna gabdhaha waxay weydiisanayaan saxiix. kadib maalinta xigta waxay isku dayaysaa inay wax soo gadato laakiin waxay ogaanaysaa kaarkeeda inaysan wadanin. kadib wiil ayad ay ka heshay meeshii imaanay kadibna lacagta ayuu ka dhiibaya. run ahaantii ayadu waxay soo xasuusanaysaa wiilkan inuu hadda ka hor caawiyay waxaan ku aragtay baska ayadoo wakiil ka dhaco dadka dhan wakiilkeeda raantinayaan ayaa wiilkan u soo qabtay. marka ugu horeysa horta wiilkan wajigiisa maysan arkaynin sababtoo wakiil ma wadanin. wakiilka markuu siina way arkaysaa kadib waxay ku dhahaysaa markii labaad waa adigaad i caawinaysid run ahaantii aad u mahadsan tahay. asigan wuxuu dhahayaa waan isku leenahay kadib way soo baxaysaa siday kaarkeeda u raadsato. asiga ayaa imaanaa woona tusinaya maxaa ka wadaaya ku dhahaysaa sidee u qaadatay. kadib fiirayo ku dhahayaa gacanteeda dartaada iyo dhaawac u gaaray. kadib guriga ay isku soo raacayaan wuxuu tusinaya waraaqad wax ku qoran yahay wuxuu dhahayaa wax walba u baahan waa inaad ii qabataa. markay guriga imaadaan waxay ogaanaysaa inuu yahay asiga muusikiiste. kadib waxay ku dhahaysaa waraaqada maxaan ku sameeyaa. asigan wuxuu ku dhahayaa waa inaad akhrisaa muusikan laxankiisna waan u baahanahay. kadib wuxuu dhahaysaa aniga waxaas diyaar mooy. kadib wuxuu ku dhahayaa kaarkayga soo wareegsada lacagaha u baxsado ana shaqaale u keensado. ayadan waxay ku dhahaysaa waxaas sameeyay wax walba u baahantaa waan ku sameeynaya. okay waayo ku dhahayaa asigana. kadib howsha guriga dhan markay qabataan wuxuu ku dhahayaa biyo biyaha ayay siinaysaa. waxaan ku dhahayaa aniga biyo caadi marow waxaan labada maxay tahayne biyo fiican ka heli karay ii keen. kadib ayadoo xanaaqsanaya ka qaadaysaa cabaar kadibna wuxuu ku dhahayaa shaatiga waa inaad ii xirta sababtoo dhaxanaya ay hayso. ayadoo xanaaqsanayana shaatiga u xiraysaa wax yar ka bacdina ayada way badaalaysaaba. ugu dambeyn habeenkii dhan raaqad si ay u shaqaynayso way hurtaysaa. asigin run ahaantii saayid ayuu u fiirinaya wuuna ka naxayaa. kadib wuxuu u soo qaadayaa go'oon u daboolaya siday u seexato. kadib subaxii markuu waa bari waxay arkaysaa wiilka ayada karashka ku aheeday inuu gabar la taagan yahay. waxay ku dhahaysaa waxbaa raba inaan ku weydiisto laakiin midaas muhiim maahan. asigana wuxuu ku dhahayaa waayay soo bax saaxiib. ayadan waxay ka cabsanaysaa maadaama saayid ay u jeceshahay inay naagtan la wareegto ninkan. habeenkii markii la gaaro wajigeeda waxay marsanaysaa qajaar yacni qajaar ayay iska soo saaraysaa. asiga ayaa u imaanaya waxaan ku dhahaa wax la cunaamay wajiga saaranaysaan see wax ka yihiin. ayadan waxay ku dhahaysaa meel ayaan u socdaa. kadib wuxuu ku dhahayaa afka ayaan rabaa inaan wax la iga sameeyo. ayadan afkiisa ayay fiirinaysaa maxaa qaldan ayay ku dhahaysaa. kadib maaska ayuu tusinaa wuxuu ku dhahaa maaska inaan xirta ayaan rabaa dhaqso waa inaad kareenka ii marisaa. ayadan waxay ku dhahaysaa waayahay kareenka ayaan u marinaysaa intuusan maaska xiranin. ugu dambeyn asiga aad ayuu ugu farxayaa si xun ayuu u fiirinayaa. kadib markii uu dhameys meesha gabar ayaa kasoo qaylinaysa waxaan ku dhahaysaa naag yaa guriga keensatay soo maahan ayada ayaan jeceshahay. kadib gabadha way soo xaraysaa waxayna arkaysaa gacanta inuu dhaawac ka yahay. waxaan ku dhahaysaa maxaad iigu sheegi weyso. asigan wuxuu ku dhahayaa waa in loo midaas. kadib meelaha soo fadhiisanaya wax walbana wuu ka dhaadhicinayaa. ayadan waxay ku dhahaysaa waan ka xumahay. kadib ayada waxay ku dhahaysaa aniga waan u shaqeeyaa oo kelima waxba naga dhaxeeyo adigana qalbigaaga deji. asigan wuxuu ku dhahaa maxaa hadalkan u sheegaysaane adiga iska aamus ayay ku dhahaysaa. kadib maalinta xigta waxay u soo wadaysaa banaanka dalada ayayna u soo qaadaysaa. kadib saaxiibkeeda ayaa arkaysaa asigoo dhanna wayba ka cararaysaaba. kadib saaxiibkeeda ayay daladu daboolaysaa wayna u sheekeynaysaa. asigan wuxuu ku dhahayaa waan fiican laakiin abuuheelo kala qaylina waxaan ku dhahayaa dalada madii saartid. saaxiibkeedna wuxuu ku dhahayaa orodtee u saar. kadib habeenkii markii la gaaro albaabkii ayaa xoog loo soo garaacaya. markuu furan wuxuu arkayaa iyadoo soo xararaysa aad ayuu noogu naxayaa. wuxuu ku dhahayaa maxaa kaa qaldan. geedkan fiiraya ku dhahaysaa sooma qurux badna tan kale beri waxaan rabaa saaxiibka inaan la kulmo caawan waa inaan ciyo u seexdaa. asigana arrintaas waa ka xumaanayaa run ahaantii. kadibna subaxii markii la gaaro waxay la kulmaysaa wiilkii. asigana wuu sheekeynaya wuxuuna ku dhahayaa waa inaad waxbarashada ku dadaashaa. ayadan run ahaantii arrintaas way ku farxaysaa waayahay ayayna ku dhahaysaa. subaxii xigta waxaa arkaya iyadoo wax marsanayso wuxuuna ku dhahayaa xagee isku diyaarinaysaa. ayadan waxay ku dhahaysaa saaxiibka inaan la kulmo waxaa loo baahan inaan isqurxiyo. kadib way qoslaysaa asigana saayid ayuu u fiirinaya. kadib wuxuu ku dhahayaa waayahay la kulan. kadib waxay ku dhahaysaa quruxdeedii marow inuu qof biniaadan ka shakiyo. habeenkii markii la gaarina waxay imaanaysaa banaanka sida asigoo la kulanto.
laakiin roob ayaa soo daayo. Kadib waxay ogaanaysaa dalad inaysan wadanin, laakiin isaga ayaa u imaanaya dalad ayuuna u keenayaa. Run ahaantii markay aragtana way ku farxaysaa arrintaas. Dib waxay ka cabsanaysaa asigoo la taagan inuu saaxiibkeed imaado, waxayna ku dhahaysaa mahadsanid iska bixi kartaane. Laakiin waxay maqlaysaa saaxiibkeeda iyadoo caanaya, wuxuuna ku dhahay gabadhaas aniga maba ka helin, tan kala foolxumo waa mana qurux badno, mar walbana waxaan ula dhaqmaa sida shaqaalihii oo kale. Ayadana way dareento, asagana hadalkaas uu ka xanaaqay, wuxuuna isku dayaa ninkii inuu garaaco, laakiin ayada ayaa qabanayso. Kadibna asiga way ka dhuumanaysaa, asigana maadaama ay ka dhuumanayso dalada ayuu ku daboolayaa. Kadib shaatigiisa ayaa waxaa ku halaabaya rooseeta, ayadana way ka tirtiraysaa, waxaana ku dhahaysaa wax walbaad ii samayso waad ku mahadsantahay. Asigana wuxuu ku dhahay waxaas waan isku leenahay. Kadib meel walba asiga kala xiriiraysa baloog ayay saaraysaa, waxaana ku dhahaysaa adduunkiyan ugu nacbaa. Asigana wuu la kulmaya, wuxuuna ku dhahayaa gabadhaas ammaan sii, dambana hala kulmin. Geedka habeen hor wadateen waxay kasoo samaynaysaa baliil, asiga ayaan u keenaysaa, waxayna ku dhahaysaa way qurux badan yahay qaado. Hadduu qurux badan yahay maxaad ii siinaysaa ayuu ku dhahayaa. Ayadan way xanaaqaysaa, waxayna ku dhahaysaa waxaygii soo celi. Asigana wuu diidayaa, kadib kor ayuu u qaadayaa. Kadib waxay arkaysaa gacanta inuusan ka xanuunsaneyn, aad ayaan arrintaas uga xanaaqaysaa, mar walbana way ka fogaanaysaa. Asigan run ahaantii mar walba ayuu dabagalaya, wuxuuna ku dhahayaa iga raali noqo, laakiin asiga kama yeelayso, waxayna ku dhahaysaa iga fogow, adduunka ayaan kuu necbahay. Waxayna ku dhahaysaa gurigaaga ayaa shaqaale camal aad noogu shaqaynaya, adigoo weliba iska keedhigaya inaad xanuunsan tahay, qof xun ayaa tahay ayay ku dhahaysaa. Asigana wuxuu ku dhahayaa hadda kahor waxaan jeclaan jiray inaan muusikiista noqdo, laakiin aabahay aad ayuu u necbahay, mar walbana wuxuu dhihi jiray casharadaada ka fikir. Maalmaha ka mid ahna gitaarkayga wuxuu iga dhex riday qashinka, wuxuuna igu dhahay gitaarka hadaa rabtid waa inaad gurigayga iskaga tagtaa. Anigana waxaan doortay gitaarka inaan qaato, kadibna gurigiis dhan ayaan uga soo tagay, waxaana isku dayay keligay inaan isbixiyo. Wadooyinka ayaan ku heesi jiray, dadka silimaanta ay siiyaan ayaan ku noolaan jiray. Maalinna waxaa ii imaaday gabar, waxayna ii dhigtay lacag, waxayna igu dhahday codkaaga aad iyo aad ayuu u qurux badan yahay, raali ma ka tahay hal mar inaan aniga ku duubto? Dabcan haa, raali ayaan ka ahay. Kadibna si sharud la'aan ayaan u ogolaaday aniga inay duubato. Markii ay duubtay kadibna waxay igu dhahday aad ayaad u mahadsan tahay. Anigana waxaan ku dhahay soo dhawow. Kadibna meesha ayay iga tagtay. Maalmaha ka mid ahna waxaa ii imaaday gabar, waxayna igu dhahday sidee tahay? Waan ku faraxsanahay run ahaantii videogaaga inaan soo arko, maalin waan jeclaan lahaa inaan ku arko, maantana waan ku arkay. Hadeertan waxaad iga soo wacdaa kaarkan, waxaan hubaa jaanis wanaagsan inaad iga helaysid. Maalintaas waxay ka dambeeyeen waxaan helay jaaniska dunida ugu weynaay, oo waxaan noqday fanaan aad iyo aad loo jecel yahay, adiga dartaadayna waxaas ku dhaceen. Ugu dambeyn waxaa meesha imaanaya gabdho taageeraan, waxayna ku dhahayaan sawir nala gal. Idan meesha ayay kasoo tegaysaa, laakiin inay istaagtaa ayay gadaal fiirinaysaa, asiga ayayna fiirinaysaa, waxayna ku farxaysaa guushuu gaaray. maadaama ay jeclaan jirta iyada inay fanaan noqotane, waxay isku dayaysaa jirkeeda inay dhisto, ayna dadaasho, mar walbana waxay ku fikiraysaa riyadeeda inay u rumowdo, maadaama sigriyadiisa ay u rumowday. maalmaha ka mid ah waxaa loo soo dirayaa invitation oo jacayl ka turjumayo. Kadib meesha laga soo diray ayay imaanaysaa, waxaan lagu dhahayaa maanta dhan ayaa lagu sugayay, dadkoo dhanna way fadhiyaan, soo gal. Microphone ayaana gacanta laga saarayaa. Kadib markay aragto dadka meesha joogaan aad iyo aad ayay u naxaysaa, hadalna wuu kasoo bixi weynayaa. Kadibna waxaa meesha imaanaya saaxiibkeeda, yacni wiilka iyada caawisay, asigoo weliba gitaarkiisa wato, wuxuuna ku dhahayaa adiga hees, anigana muusikada ayaan kuu tumayaa, waa dadka way kaa heli doonaa. Dadkoo dhan waxay dhahayaan labadood way isku soo baxayaan, adiga miyaa waxaan ka dambeysay ayay ku dhahaysaa. Dabcan haa ayuu ku dhahayaa, waa inaad dadaashaa adigane. Ugu dambeyn ayadoo faraxsanaya waxay qaadaysaa heesta, waxayna soo xasuusanaysaa maalinta ugu horreysay oo wiilkan arkaysay. Ayada run ahaantii waxay jeclaan jirtay inay noqoto fanaan, laakiin markii aragtay wiilkan aad iyo aad ayay usii jeclaatay, waxayna ka duwatay videogiisa ayayna qad ka dhigtay. Maantana wuxuu noqday qof heer sare gaaro. Kadib ayada markay isku dayday inay jirkeeda dhistane, asiga ayaa mar walba caawin jiray si ay u noqoto fanaan dadkoo dhan ay wada jecel yihiin. Qisadood ayayna heeday heestaa maalintaas wada qaadayeen. Ugu dambeyn ayadoo faraxsan ayay banaanka usoo baxaysaa, wayna u mahad celinaysaa, laakiin dadka ayada hore u nici jireen dhan ayaa u imaanayaan, waxayna ka dalbanayaan guur, waxayna siinayaan ubaxyo. Ayadan midaas way ku farxaysaa, laakiin asiga markuu intaas arka wuu baxayaa. Ayadayana wacaysa, waxayna ku dhahaysaa xagee aadaysaane? Marka hore aad adiga tilaabada qaadaysa, aniga garab maanan kugu
kugu seenin maanta markaan aniga tilaawadan qaadayn meeshan miyaad iiga tegaysaan waxaan u baahanahay tilaabo walbaan qaadayn inaad ila qaadid aadna garabkayga ahaatid asagana waxaan ku dhahay aniga midaas ma diidani mar walbana waxaan jeclahay inaan garabkaaga ahaado gacantaada ii dhiib ayuu ku dhahayaa sida mar walba garabkaagan u ahaado ayadan way ka ogolaanaysaa midaas kadib ubaxyada jecleed ayaa kor loogu soo daadinaya ayadan midaas way ku farxaysaa filimkeena quruxda badnaa asxaabe halkan ayuu ku dhamaaday muuqaalkan daa ka hesheen like noo saara subscribe noo taabta gambaleelkana furta aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin